ujeedooyinka ugu waaweyn oo loo sameeyey oo aan ugu talagalnay isku imaatinka taliyaasha qaybaha iyo maxaan ku rahaa talisku guud wuxuu xambaarsanaa muhiimadiisa ugu weyn waa laba qaybood qaybta hore oo ahayd in la xoojiyo taliska xoog dalka Soomaaliya iyo qaybaha wada shaqeynta qaybaha xoog dalka Soomaaliya si wada shaqeyn u hawlgeli lahaayeen u kala war qaadan lahaayeen iyo sidii aan ula shaqeyn lahayn walaalaheen Amisom maxaa ula hawlgeli lahayn joint operation ku wada sameyn lahayn aan u hawlgeli lahayn muhiimad weyn buu leeyahay sanadkan kaas oo ah sanadkii loogu talagalay in wax weyn ay iska bedelaan xaaladda amni ee dalkan oo ah in dalkan laga xoreeyo nimanka nabadiidka al-shabaab iyo wixii la halbaala sidaa darteed waxaa laga maarmaan noqotay xoogga dalka Soomaaliyeed inuu u tabaabushaysto sidii mataqaanaa annaga dhexdeennana aan u wada shaqayn lahayn waxaan ku talagalnay sanadkan inuu noqdo sanadkii ugu muhiimsanaa ee waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amisom maadaama aan ognahay Amisom inay ku socoto dhabihii ay uga bixi lahayd aanu ula wareegi lahayn maxaan ku raahdaa amniga dalkan qorshaha SNA sanadkan ay ku talageliso oo badanaaba lagu muujiyey presentationkan haldhigyadiisa ugu waaweyn markaan wax yar ka koobo waxa way in la tiro koobo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la registrareeyo biometrically loo sameeyo account loo sameeyo financial payroll-kiisu uu noqdo mid la hubo oo saxsan oo la jaanqaadi kara casriga cusub la hubeeyo lana qalabeeyo lana tayeeyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo joogo isla markaasna uu noqdo ciidan isla jaanqaada oo wada sameeya laba qaybood oo ah qaybaha joint operationka uu la sameeyo Amisom iyo meelaha Amisom aynu joogin oo uu kaligiis ka fuliyo hawlgalladii looga baahan yahay si uu dalku oo dhan uga wada socdo hawlgalku si isku mid ah sida ogsintiin waxaa jira dhowr sector oo maxaa ku sector 21 oo cadowgu ayaan dab uu ku soo badanay especially dhinaca xeebaha oo aysan joogin Amisom marka waxaan ku tala jirnaa inaan aad u xoojino sector 21 sidoo mataqaanaa hawlgal kaligiisa uu sameeyo oo uu iskaga daafaco cadowgaas ugana xoreeyo qaybta xeebaha meelaha ay ku leeyihiin baraha mataqaanaa macamilka sida xardheere iyo maxaan ku raahdaa ceeldheer intaba annagoo ku tashanaynaa saaxiibadeena ama walaalaheena Amisom iyo international community intaba waxaan sanadkan ku tala jirnaa inaan wax weyn ka bedelno xaaladda cadowga oo aan isleeyahay waxaan ku tala jirnaa actually qaybta ugu weyn in wax laga qabto si loo furi lahaa magaalooyinka waaweynka iyo jidadka la isku maro population centerska loo mari lahaa in aan xoreyno oo ay noqoto sanadkani marka ugu horeysa ee shacbiga Soomaaliyeed ay dareemaan guushii laga gaaray maxaan ku rahaa al-shabaab marka si ay iskugu socdaan ayaga iyo hantidooda iyo businesskooda ay u socdaan wadooyinka ay nabad ku maraan si dalka la iskugu furo waxaan aaminsanahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu awooddaas leeyahay wixii ka maqana lagu korin doono sida uu fuliyo hawlaha aan kor ku soo sheegay oo uu noqdo mid ka mir dhaliya wixii ummadda Soomaaliyeed ay ka sugaysay ahaa in ay ilaaliyaan sharaftooda iyo dadnimadooda iyo qarnimadooda dalkooda iyo diintoodaba marka intaas iraado waxaan rabaa inaan ku soo khatimo mahad u celiyo walaalaheena Amisom dhiigooda noo daadiyey oo marnaba aanan dhici karin inaan ilowno maxaa yeelay qaybta ay ka qaateen dib u xoreynta dalkan iyo in nabad lagu soo dabaalo dalkan ayagana waxaan leenahay waa kayd aan gashateen oo meel idiin yaalla ood isticmaali doontaan waqti alla waqtigaad noo baahataan waxaan kaloo mahad u naqayaa international community ugu horeyso dowladda Turkiga oo aad iyo aad wax badan dad iyo maalba ku bixisay dhismaha ama dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagana waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin
walaalkii weynaa baad tihiin aad baan idinkugu tashanaa waxaan rajaynaynaa inaad sii kordhisaan sida kor u qaadidda awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed